toyni inagu xaaladda ku jirno inuu sida madaxa isugula jirno oo maxaan ku dhahdaa aynu hoosteena sida u eegayno ayaa hareeraheena maxaa markaa ka socda gobolkii maxaa ka socda regionkii aynu ku nooleyn aynu deganeyn maxaan ku dhahdaa Horn of Africa isbedel aad iyo aad u weyn baa ayaa maxaan ku dhahdaa ka socda isbedelka gobolka isbedelkaas aan doonay in yariis dul taago gobolka wadanka ugu weyn waa wadanka Ethiopia dhaqaale ahaan isaga ugu dhaqaale badan population ahaan isaga ugu weyn military ahaan isaga ayaa ugu awood badan wadanku wuxuu la guurguuraa siyaasadda arrimaha dibadda ee Ethiopia hadba halka ay u jihaysato wixii ka horeeyay Abiy Ahmed siyaasadda arrimaha dibadda ee Ethiopia direction bay lahayd wax cad weeyaan oo way qoraan haday idinku baadhaan wada akhri kartaan website-kooda ku jirtay dadka Soomaalida la isku raada ama Soomaaliland iyo Soomaaliya oo la isku daro qorshahooda siyaasadeed ee ku waajahnaa wuxuu ahaa wax la oran jiray damage limitation website-kooda ku taala ujeedadoodu maxay ahayd marka damage limitation Soomaaliya waxay u arkayeen mushkiladda ay markaa u arkeen Soomaaliya waxay ahayd inay dabadeetana iska kantroolaan maamulada Soomaaliya ka dhisma kay doonaan ha noqdaan ay xiriir la yeeshaan si ay danahooda amni u gaadhaan ujeedada ugu weyn ee maxaan ku raahdaa siyaasadoodaas ay ku qotantay ku fadhiday waxay ahayd amnigooda gudaha sidoo kale siyaasadooda arrimaha dibadda waxay ku fadhiday ay ku qotantay siyaasadda arrimaha dibadda meel banaanka ma dhacdo waxyaabo badan baa saameeyay oo hareerahaaga ah waxa ay ku fadhido ay ku qotantay gobolku sidooha regionka Horn of Africa sidooha waxa lagu tilmaami jiray regionka Horn of Africa ama gobolka Horn of Africa inuu yahay gobol aan rajo lahayn aan mas'uuliyiintiisa iyo dawladahoodu aanay is aaminin gobolka adduunka ugu khilaafka badan gobolka adduunka ugu dambeeyay ee ugu liita qoraalada dadku ay ka qoraan ay ka hadlaan sidaas oo ah Chatham House warbixin ay ka soo saartay oo Sally Hale ay qortay oo expert ku ah Horn of Africa ayaa waxa ciwaan uga dhigtay hostage to conflict inay gobolku yahay gobol khilaaf u afduuban oo maxaan ku dhahdaa afduuban siyaasadda marka Ethiopia ay ka duuleysay arrimaha dibadda taasay laakiin way isbedeshay taasi bishii imka aan soo dhaafnay September 10keedii waxa si fiican article wanaagsan uga qoray wargeys Mareykanka ka soo baxo la yiraahdo Foreign Affairs magazine 100 sanadood 4 sano uga dhiman wargeyska ama magazine-ka waa expert markay noqoto adduunka waa looga dambeeyaa markay noqoto faaqidaada arrimaha siyaasadda arrimaha dibadda waxa weeyaan waa one of the best way waa kuwa ugu wanaagsan way wuxuu ka hadlay siyaasadda arrimaha dibadda ee Ethiopia halka ay hadda u food saaran tahay iyo halka ay u socoto waxa uu yiri siyaasadda arrimaha dibadda ee Ethiopia hadda waxay ku salaysan tahay in la abuuro is-aaminaad gobolka dhexdiisa ah iyo is-ixtiraam ay dawladaha gobolka is ixtiraamaan Ethiopia marka dawladda ay u taqaano inay ixtiraamto dawladda Soomaaliya sida heshiiskii ay farmaajo wada galeen ku cad dawladda ay leedahay waanu ixtiraamayna waa dawladda Soomaaliya inaga dawladii nooma aqoonsano inooma taqaano horena inooguma aqoonsan imikana dawladii nooma aqoonsano inooma taqaano heshiiska ay wada galeen maalinta anagu xisbi ahaan waanu ka hadalay laakiin xukuumaddu nama khusaysa bay tiri heshiiskaasi waxa ku qornaa in ay Ethiopia ilaalinayso midnimada wadajirka iyo sidoo kale ba ay ilaalinayso sovereignty-ga waxa la yiraahdo Soomaaliya iyo xuduudaheeda oo dhan ay ixtiraamayso ilaalinayso marka dariiqa ay qaadanaysaa waxa weeyaan waa ka weeye inay maxaan ku raahdaa ka ilaaliso waa sida wargeeskaasi maxaan ku raahdaa u faaqidayo ee uu uga hadlaayo waxa kale oo ay qaadatay mabda'a ah Ethiopia waxay u aragtay Ethiopia oo danteeduna ay tahay maadaama ay wadanka ugu shacabka badan ugu dadka badan ugu dhaqaalaha badan inay suuqeeda furfurto wadamadu ay isdhex galaan regional integration ka waxa la yiraahdaa u dhaco dhaqaaluhu maxaan ku raahdaa Ethiopia ay u noqoto deetana Ethiopia ay regionka iyadu hogaamiso waxa la yiraahdaa afka qalaad regional hegemony baa la yiraahdaa wadamadu markay doonayeen regional hegemony inay noqdaan waa inay wadamadii kalena isu keenaan marka adduunka dariiq caalami oo la maraba jira ma ha dariiq tujuubo oo wadanka aad cabsi gelinayso waa wadanka inaad fursad siiso inaad ixtiraamto heshiisina gashaan dhaqaalihiinu ay maxaan ku raahdaa isugu imanayaan mabda'a regional integration wuxuu ka soo horjeedaa wax kasto ay Soomaaliland doonayso
waxa uu ka soo horjeedaa inay wadamadu sii kala go'go'aan waxa uu ka soo horjeedaa in wadamo cusub ay wadamadii hore ka baxaan siyaasadda arrimaha dabadda Itoobiya socotaa waa taa weey waa regional integration ka weey in wadamadu ay isdhex galaan oo mustaqbalkana ay wada yeeshaan san wax noocun ay maxaan ku raahdaa hay'ado iyaga ka dhaxeeya ama amni ha noqdaan ama dhaqaalaha ha noqdaan ama maxaan ku raahdaa siyaasadooda arrimaha dabadda ha noqdaan ama military ha noqdaan wadamo badan oo adduunka baana sameeyay Africa haddaad eegto East Africa Community ba ayaa kowka oo ay ku midaysan yihiin Uganda Kenya Tanzania laakiin Rwanda iyo Burundi laakiin Kenya hogaamisa oo hegemon u ah shanta dal way ugu dhaqaale badan tahay waxa weeyaan waana dadkeeduna ugu aqoon badan yihiin Europe ka soo bilaabantay adduunka maxaan ku raahdaa in hadda tirso waxa jira wadamo badan oo regional integration kaasi sameeyay laakiin halkay ku wada inay aakhirka lacag isku mid ah sameystaan East Africa Community hadday wadaan inay lacag isku mid ah sameystaan horena way u lahaan jireen way ka dib mar way yara noqdeen maxaan ku raahdaa sida Europe oo kale iyadana ogtihiin inay leeyihiin lacag isku mid ah passport isku mid ah waxa soo dhan marka waxaan uga wadaa aanu keenayaa wax kasta oo inagu aynu doonayno oo ah inaynu dawlad gaar ah noqono oo ah inaynu goono oo ah inaynu Soomaaliya ka tagno waxa maanta gobolka ka socda uu ka soo horjeeda waxa la leeyahay intii kalaaba la isu keenayaa ay cid sii tagaysana maxay tahay laakiin inaga maxay tahay inagu waynu foorarnaa jawaabaheenu waa nama qusayso jawaabaheenu waanu isku fiicanahay jawaabaheenu waa si fiican bana loo soo dhaweeyay maqaam sarana lagu soo dhaweeyay wada been laakiin oo aan siyaasad ahaan macna ay sameynaysa aanay jirin waxa arintaasi markaas inaga ayna dhigtay marka labada eegto gobolka waxa ka socday iyo sidaynu hadnay ee aynan qaybnaba uga ahayn siyaasadda hore arrimaha dabadda Itoobiya waynu geli kareenay khaanada aynu ka galanahay laakiin imika way xiran tahay meel aynu ka galaan ma jirto marka labadaas eegto sidee baa inaga layno arkay adduunkii kalena sidee baynu arkay run hadda doonaysaan adduunkii dadkii xitaa Soomaaliland jeclaa waa frustrated يعني نية شب وين أيام حنكر هذا كتير dadka saaxiibada Soomaaliland la aha waxa kamid ah Mary Harbour oo Soomaaliland wax ka qorta Soomaaliya wax ka qorta wariye bariga Afrika BBC in badan uga warramaysa gabadh maxaan ku raahdaa aqoon badan gobolka u leh siyaasadda galbeedka ee gobolka ku wajahan wax badan ka fahamsan ayaan dhaweyd bay ay arinta Soomaaliland ka hadlaysay waxa ay durtay tiri Soomaaliland ma aha meel yar oo wanaagsan oo xuquuqul insaankii in Soomaaliland dadka iska xidhxidho in dadkii la caburiyo in ma waqtiisa waxa halkan ka dhacay adduunkana waxa sun ba tagay in dadkii la iska xidhxidhayo in maxaan ay ka hadashay waxa kale ka hadashay waxay tiri waxa jirtay mar wadamada Ingiriiska iyo dawladaha kale oo Soomaaliland ku dhadhawi ay sympathy waxa la yiraahdaa niyad wanaag iyo la jeclaysi eragaas isticmaashay sympathy inay u hayeen Soomaaliland dal madax banaan noqoto laakiin taasi hadda ma jirto indhaha oo dhamina Muqdisho iyo Soomaaliya ay ku jiraan anu maaro Mary Harbour Battery oo ah qof maxaan ku raahdaa khabiira aqoonteedii garashadeedii assessmentkeedii ay sameysay maxaan ku raahdaa in hadlaysa anu dhawaan UK baan tagay wadanka maxaan ku raahdaa in Belgiumna waan tagay Brussels meesha Europe looga taliyo dad badan oo ama dad academics ama maxaan ku raahdaa in siyaasadda Soomaalida iyo Soomaaliland ba war haya ayaan la sheekaystay والله وكني جبسين Somaliland طريقي كسعتنا عادي بي وغني جبسيهم waxaynu u soconaa inaynu noqono in yar halkan iyadu isku buuqda in yar oo halkan iyadu isku buuqda oo halkan ku muranta ayaynu ku soconaa inaynu noqono maanta hadii 7-8 sano ka hor markuu daahiriyaal madaxweynaha aqoonsi laga hadli jiray aqoonsi maanta cidna kama hadasho cid aliyaala cid ka hadasha ma jirto dawladdeennuna kama hadasho waa xaqiiqo weey waxa dhab ah sida markii la weydiiyay wasiirka aqoonsigii wareysigiisa daawada aqoonsigii uu uga boodsiiyay iyaga maxay u jiray uu ka boodsiiyay ayaa xaqiiqo ah oo maxaan ku raahdaa dhab ah inaan aqoonsi laga hadlo laakiin maxaa laga hadlaa waxa laga hadlaa survival wax la yiraahdo si jiritaankeena laga hadlaa inaga oo sidana intee in leeg baan sii jiri karnaa inaka oo sidana intee in leeg ayaynu sii jiri karnaa ayaa aad looga hadlaa aniga waxa ila tahay aan hadalkaygana kusoo gabagabeynayo kusoo koobaya sida aynu ku sii jiri karnaa waa inaynu umad noqono
wada jirkeena iyo inaga dhexdeena aynu xoojino laakiin hogaamin bay u baahan tahay hogaamintuna inay xukuumadda ka timaado u baahan tahay maaha xukuumaddu cidda iga soo horjeeda waan aamusiinaya maaha cidda waxaan jeclayn oo dhagahayga music u noqon karahaynin waan xilaya ama TV ha noqdo ama journal ha noqdo ama qof kale oo ra'yigiisa hadlay ha noqdo haddii ay taasi dhici weydo oo wada jirku iman waayo haddii xukuumaddu ay hogaaminta qaadan kari weydo iyadoo u muuqata inaanay xukuumaddu hogaaminta qaadanaynin haddii ay xukuumaddu hogaaminta qaadan weydo madaxweynuhu uu soo dhisi waayo dawlad cusub oo tayo leh oo waqtiga adag ee wadankeenu uu ku jiro inaga saari karta haddii ay taasi dhici weydo waxa ay ku dambeyn doontaa hadalkii Professor Samatar ee ahaa ama xaafade u kala go'go'ay ama iyadoo gurguuranaysa ay Muqdisho tagi doontaa